kulanti wanaagsan waa xalqadii labaad ama qaybtii labaad ee ciwaankii hore aan uga soo hadalnay ee ahaa finish what you start. marka qaybtii hore waxaan uga soo sheekaynay problemiska keeni kara ama waxyaabaha sababa qofku wuxuu bilaabo inuusan ka gungaarin ama wuxuu bilaabo inuu meel dhaxa uga tago. mushkiladaha sababa ayaan uga soo sheekaynay. qaybtan marka waxaan uga sheekaynaynaa maxaa marka fududayn kara ama qofka maxaa u sahli kara in wixii uu bilaabo ama wuxuu istaaro uu gunaanadkooda soo taabto. waxaan ku soo gudbinaa marka xalqadan ama qaybtan dhowr farsamo iyo dhowr xirfadood oo haddaan aad raacdid aan isleeyahay waxay badi u badan tahay inaad ka adkaatid caadada ama dhaqanka ah in wax walba ayaad meel dhaxa uga tagto ama shay walba inaad uga tagto adoon gunaanadka soo taaban. so su-aal baa marka jirto oo aranaysa ama dhahaysa yacni qofka bini aadamka ah maxaa ku riixi kara ama maxaa ku dhiiri gelin kara wuxuu bilaabo inuu si qurux badan ku afmeero ama ku gebagabeeyo ama ku dhammeeyo. so si kale haddaan u sawiro waxaa laga wadaa yacni maxaa kaa dhigi kara motivated xilli kasta shaqadii aad ku jirtid ama wixii aad qabanaysid what can motivate you remain maxaa halkaa kugu dhiirigelin kara. so si kooban horta motivationku ama dhiirigelintu waa qofka bini aadamka shaqada uu qabanayo waxa ku riixa waxaa la yidhahdaa motivation baa la yidhahdaa ama waxaa la yidhahdaa dhiirigelin baa la yidhahdaa. haddaad tusaale buug akrinayso waxbaa kugu dhiirigelinaya. haddaad course diyaarinayso ama course aad qaadanaysana sidoo kale waxbaa kugu dhiirigelinaya courskaas qaadashadiisa. haddaad maanta jimicsi aad ku jirto oo gym aad ku jirtana waxbaa ka dambeeya oo kugu riixayo kugu kalifaya. then motivationku wuxuu leeyahay laba qaab ama qofka bini aadamka ah waxa wax ku riixo waa laba qaab midkood. kan koowaad waa wax qofka bannaanka uga imaanaya deetana sababaya in waxaan uu qabanayo ama waxaan uu faraha kula jiro uu shay kala dartii u qabanayo. kan labaadna waa dareen qofka gudihiisa ka soo burqanaya oo aanu qofku shaqada uu qabanayo u qabanayn cid kale ha aragto cid kale waxa waaye aan usoo bandhiga aanu u qabanayn. for example kan koowaad haddaan ku bilowno waa waxa afka qalaad loo yaqaano external motivation waa dhaqaajiyo qofka bannaanka uga imaanaya. tusaale ahaan qofkii wuxuu ku jiraa gym ayuu ku jiraa tusaalahaasaan soo qaadanayna ama xarumaha lagu jimicsadoo kale ayuu qofkii aadaa oo tagaa. marka waxaan markii qofka tusaale ay ku dhiirigelinayaan shay bannaanka ka yimid oo kale wuxuu ka cararaa baa la yidhahdaa hal shay buu ka cararaa. wuxuu ka cararaa wax loo yaqaano negative consequence. haddaan gymkan iska daayo ama haddaan gymkan joojiyo what can happen to me maxaa igu dhacaya. su-aashaasa halkaa taala. that means maxaa igu dhacaya waxaa laga wadaa ama loola jeedaa haddaan gymkan iska daayo ama jimicsigan haddaan joojiyo dadku maxay oran doonaan maxaa lay dhihi doonaa anigu maxaan cawaaqib xumo ah oo la kulmi doonaa maxaa negative oo isoo wajihi doona. that's what we call external motivation. waa qaybta koowaad. qaybta labaad intaan marka qaybta labaad gelin waxaa la yidhaahdaa qofku waxaan haddii ay ku dhiirigelinayaan ama qofkaas sideedaba hadday dhaqaajinayaan wax bannaanka ka yimid hadday dhaqaajinayaan dhaqaajiyaha noocaasa meel fog ma gaaraa la yidhahdaa. sababtoo qofku wax unbuu isleeyahay ka badbaad wax unbuu isleeyahay yaysan kugu dhicin. haddaad wax baran weysid maxaa kugu dhacaaya haddaad shaqo heli weysid maxaa kugu dhacaaya wax unbuu isleeyahay ka badbaad yaysan kugu dhicin yaadan la kulmin. external motivation meel fog waxa noocaasa marka ma gaaraana la yidhahdaa. qaybta labaad waa dareen ama emotion qofka gudihiisa ka soo burqanaya oo ku riixaya waxaan qofka inuu gebagabeeyo waxaan qofka inuu sii joogteeyo waxaan qofka inuu sii wado. kaasaa marka si kooban afka qalaad waxaa lagu yidhahdaa internal motivation ayaa la yidhahdaa. das waxaan markay yihiin internal motivation markay yihiin ama dareen gudaha ay ka soo burqanaya markay yihiin waxaa la yidhaahdaa qofku wuxuu ka fekeraa hal mid basuu ka fekeraa wuxuu ka fekeraa oo isweydiiyaa
waxaan haddaan gebagabeeyo anigu maxaan helayaa shaqadan sideeda haddaan u qabto maxaa iiga soo baxaya shaqadan ama processkan aan wado haddaan dhammeeyo mustaqbalkayga maxay kusoo kordhinayaan marka halkan internal motivationka marka la joogo qofka pressure banaanka ma saarnee waxaa saaran pressure internally oo asaga uu abuuray baa saaran marka course baad bilowday after the end of the course muxuu igu soo kordhin doonaa seesa noqon doonaa jimicsi baad bilowday after the end of the exercise maxaan iska kay bedeli doonaa that's the waxa qofka markii dareen gudihiisa ku jiro uu riixaayo lagu garto waa then dadka legendiska meeshay rabaan legendsa ka noqdaan waxbarasho siyaasad sportis meeshay rabaan ka noqdaan ganacsi mid walba dhee waxaa la yidhahdaa waxaa dhiirigeliya waxaysan ishu qaban ayaa dhiirigeliya ayaa la yidhahdaa like qofka inuu hadafkiisa gaaro like dareen qofka gudihiisa ku beeran oo uu isleeyahay halkaa soo taabo halkaa gaar uu isleeyahay dadka normalkaana waxaa dhiirigeliya waxyaaba tangible oo la taaban karo waa maxay in xil loo magacaabo in lacag la siiyo in abaalmarin la siiyo in la ammaano waxyaabahaas yaryarka ah ee aan macnaha badan ku dhisnayn ayaa dhiirigeliya ayaa la yidhahdaa so su-aasha marka ahayd maxaa qofka dariiqa uu ku socday ee hawshii uu bilaabay uu ku waday aan ka leexin karin afartan qodob qofka hadduu maareeyo ama afartan shay qofka hadduu si fiican u isticmaalo waxay u badan tahay ayaa la leeyahay qofku wuxuu bilaababa inuu guul ka gaaray u badan tahay baa le shayga koowaad waxaa la yidhahdaa fox wax kale ma ahan waa waxaan adoo gebagabeeyey waa inay kuu muuqataa you have to think the end courskii baad bilowday adoo dhameeyey waa inay kuu muuqataa jimicsigii baad bilowday adoo guul ka gaaray waa inay kuu muuqataa marka gunaanadka waa inaad isha ku haysa marka focusku waa kaasa shayga labaadna waxaa la yidhahdaa self discipline waxyaabaha distractionska ama temptationka waxaad qabatay soo weeraraya jadwalkaaga maalinlaha soo dhexgelaya ee aadan qorshaha ku darsanba waxyaabaha iyaga waa inaysan dariiqaaga kaa leexin marka inaad naftaada xakamayn karto waxaysan meelaha qaarkood macnaha badan waxaan kugu soo kordhinayn laakiin naftu iska rabtoo kale waxyaabahaasoo kale inaad kasoo jiidi kartaa oo dariiqaaga ku socon kartaa qodobka labaadna ama qodobka saddexaadna waa action qofka inuu ficil sameeyo so ficilkaas marka badi dadku way yaqaanaan oo waa garanayaane laakiin meel yaroo kooban baan rabaa inaan idinka tuso horta sideedaba meelaha qaarkood muhiim maahan qofka inuu tallaabo weyn inuu hal mar qaado it's not important waxaa muhiima wax yar qabo then wax yaroo kala qabo then wax yaroo kala qabo ayagaa marka waxay noqon doonaan massive oneses ama waxay abuuri doonaan massive action waxaad saacad qabatay oo loo geeya saacad kale waxaad qabatay oo loo geeya saacad kale waxaad qabatay ayaa macno leh waxaad maalin qabatay oo loo geeyay maalin kale waxaad qabatay oo loo geeyay maalin kale waxaad qabatay baa macno abuura marka saa darteed waxaa la yidhahdaa qofka inuu hal mar inta soo boodo shaqo weyn qabto waxaa ka muhiimsan inuu maalin kasta wax yar iska yaryareysto maalin kasta shaqo qabto oo wixiisu ay noqdaan consistency waxaan qofka inuu joogteeyo ilaa yaysan badnaane qodobka u dambeeya afraadna waa persistence qofka inuu leeyahay dhabar adeyg dulqaad joogteyn qofka inuu leeyahay marka wixii aad bilowday ee foxka aad saartay naftaadana aad ballan kula gashay in aad shaygaas guul ka keenayso ama aad gebagabaynayso ama gunaanadkiisa aad soo taabanaysid deetana aad naftaada kula ballantay maalin kasta inaad tallaabo ku dartid maalin kasta inaad wax un ku dartid shaygaa waa inaad ku nagaataa persistence that's the meaning of persistence thank you so much